السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalkiin maxamed amiin channelka daawanaysaana waa amiin media. dhammaan meesha joogtaan waan soo dhaweynayaa asxaabta channelka ku cusub waxaa leeyahay soo dhawaada, gacmo furan ku soo dhawaada. channelka waa channelkiini, asxaabta nala joogtana waa ku mahadsantihiin. maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo mowduuc ama talooyin ah saa channelka ugu bartaan ama aniga iga barateen shakhsiyan. badanaa waxaan soo jeediyaa talooyin ama kuwa in u baahan la iska ilaaliyo ama kuwa u baahan lagu dadaalo. marka maanta waxaan doonayaa inaan kula wadaago iska ilaali 4 shay oo run ahaantii noloshaada sahmaynayo aqri adduunba. shayga koowaad waxa weeyaan iska ilaali isku dirka, inaad dadka isku dirtid, war been u kala geysid. aadaad heblaay waxay ku tirsadaan, heblaa wuxuu ku dheesaan. run ahaantii wax wanaagsan ma ahan. ummaddan waa ku kala geynaysaa, aqarana waxa ku mutirsanaysaa inaad ku sifowdo qaab namiimiye ah. nabigeenana wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam, annamiima laa yadkhulu aljanna, oo macnaheedu yahay qofka namiimiyaha ah ama qofta dadka isku dirto dadka isku dira janno ma gasho ama ma gelayso. marka arrinka koowaad aan kula wadaagay waxaa weeyaan iska ilaali inaad dadka isku dirtid, war u kala qaadid. xitaa haddii aad war maqashid isku day warka inaad wax si wanaagsan aad macnaha ii sheegay aad u jeedisid. waa ka xumahay haddii oo mugdi aan galay, waxaa waay bateriga igu yar. arrinka labaad waxaa weeyaan iska ilaali inaad kibirtid oo kibir iyo macnaha santaag uu kugu dhaco isla weyni. arrintaasi oo run ahaantii kugu sababeyso inaad meel xun ku dambeyso. bilaadanka kibir uma sugnaanin, kibir alla weyne ayaa u sugnaatay. kibirka iska ilaali, wax fiican ma ahan. haddii aad aragtay qof kibraayo ama kibir iska dareemayana u nasteexay, waxaa dhahdaa ilaahay ka baq, kibirka ma wanaagsano. arrinka saddexaad ee aan kula wadaagay waxaa weeyaan ha noqonin haya raac. iska raaca dadka fikir kasta u keenaan, wax kasta u sheegaanna iska dhegaysto. ee noqo qof asaga fikirkiisa iyo aayihiisa macnaha asaga go'aan ka gaaro. wax kastoo aad samaynaysidna qof kale ha kala tashanin. fiiri oo qiimay. haddii aad aragto in wanaag uu ka imaanaya aqri adduunba ku dhaqaaq. haddii aad aragto in aqradaada iyo adduunkaada ay burburinaysana run ahaantii ka jeeso. marka arrinkaasna waa arrin muhiim ah oo qofka inuu iska ilaaliyo u baahan tahay hayraacnimada ama qofka oo raaco fikirada ama aaraada dadka kale iska ilaali. kan afraad ee aan doonaya inaan kusoo gabagabay waxaa weeyaan iska ilaali oo ka dheeraaw dadka aan qalbiga wanaagsan lahayn, yacnii qalbiga ka buka ka xanuunsan uqdadda iyo xumaatada ku jirto. run ahaantii dadkaasi haddii aad la socoto ama aad la saaxiibtid, waxay kuu horseedayaan meel xun iyo fikir xun inay kugu beeraan. qalbigaagana waxay ku beerayaan waxyaalo xunxun. ugu dambeynna waxaa macnaha noqonaysaa isagaasoo kale ama ayadaasoo kale. marka qofku walaalkayga iyo walaashayda qof kasta oo daawanayo waxaan ugu digayaa 4taas shay oo run ahaantii aan jeclaysta maanta inaan nila wadaaga channelkee dadka ku jiro. fadlan haddii aad 4tan arrin ay ku soo gaartay oo aad aragto wax macquul inay tahay oo macnaha ku anfacayso ama walaal kasta muslim anfacayso, sii shargaree. muuqaalkana like saar. haddii aad naga cusub tahay ay tahay marka koowaad ee aad soo booqatay kanaalkeenana, dee soo dhawaaw oo subscribe saaro, gambalaalkana taabso si ama markasta u heshay muuqaal kastoo soo gelino. no ahaantiina ayaantan waan iska yara mashquulsanaa, saas awgeed waan ka cudur daaranayaa inaan ayaantan isweynay. iga raalahaada ayaan leeyahay. hadda wixii ka dambeeya insha allah waan dadaali doonaa muuqaalo xiiso leh insha allah, iyo talooyin wanaagsan iyo macnaha aqli iyo fikir wixii aan hayno inaan wada wadaagno insha allah ayaan isku dayi doonaa. ma doonaya inaan muuqaal kusii dheeraado. 4ta arrin qof kastoo iska ilaali, kuna boori walaal kastoo muslim ama walaal kastoo muslimad ah inay
ku dadaashay inay ka dheeraato waa walaalkiin maxamed amiin oo ina leh nabad ahaada meel kastoo joogtaan muuqaalkanna waa wacyigelin guude inoo sheergareeya insha allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu